mudanayaasha baarlamaanka ay saxiixay mooshinka ka dhanka ah xukuumadda ra'iisul wasaare Saacid oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay qaabka maalinta birita ah ay u wajahayaan dooda adag ee mudanayaasha baarlamaanka ka yeelanaya mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda oo hogaamiyo ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid. kulanka oo saxaafadda dibadjoog ka ahayd waxaa soo xaadirtay in ka badan 160 mudane waxaana si gaar ah kulanka ugu dhex muuqanayay xubno ka tirsan wasiiro ku-xigeenada xukuumadda hadda dalka ka talisa ee mooshinka kalsooni kala noqoshada mudanayaasha baarlamaanka ay ka keeneen. xubnahaasi wasiiro ku-xigeenadana waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta adeega bulshada. gunti iyo gunaanadkii mudanayaasha saxiixay mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda Cabdi Faarax Shirdoon Saacid waxaa nuxurka kulanka warbaahinta ugu xog waramay xildhibaan Khalid Cumar Cali. maadaama mooshin ay ka keeneen xildhibaanadii baarlamaanka mooshinkaasi tirada ka keentay xildhibaanadan ay ahayd 168 xildhibaan si maadaama berito la gudagalayo mooshinka doodiisa isla markaana la soo bandhigi doono xuduudda rasmiga ah ee xildhibaanada doonaysa inay kalsoonida kala noqoto mudane ra'iisul wasaare Saacid ayaa waxay maanta ku soo bandhigeen xildhibaanadii saxiixay mooshinka iyo in kale oo ku soo biirtay intaas. shirka nagala soo qayb gashay waxay ahayd 165 xildhibaan waxaa jira xildhibaano tiro badan oo soo cudur daartay. xildhibaan Khalid Cumar Cali ayaa hoosta ka xariiqay in xildhibaanadani ay u hoggaansami doonaan dastuurka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka. waxaan isla wada qaadanay in la ilaaliyo asluubta iyo nidaamka geedi socodka barnaamijka berito iyo in loo hoggaansamo sharciga oo ah dastuurka. waxa ugu horeyso aan ilaalinayna waa dastuurka, midda labaadna waa xeer hoosaadka. kulanka mudanayaasha baarlamaanka ee saxiixay mooshinka kalsooni kala noqoshada ra'iisul wasaare Saacid iyo golahiisa wasiirada waxa uu imaanayaa xilli maalinta birita ah baarlamaanka dood adag oo ka gali doono mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda ra'iisul wasaare Saacid.